ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo ka dhacay magaalada dekedda leh ee Boosaaso sida ay saraakiisha sheegeen. Qaraxa ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamada amniga ee gobolka Bari iyada oo weerarkaasi laga helay qaraxyo ay sheegeen inuu ahaa miinada dhulka la geliyo. Ciidamada amniga oo goobtaasi gaaray ayaa bilaabay baaritaano balse ma jiraan warbixin ka soo baxday hay-adaha amniga oo laga hadlayo qaraxaasi. Ma jiraan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa miino ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya weli sii wadaan howlgalka ka dhanka ah Al-shabaab qaybo ka mid ah deegaanada shabeellooyinka hoos yimaada degmada Awdhiigle oo dhowaan ay la wareegtay ciidamada. Saraakiisha ciidanka ee howlgalka hogaaminaysa ayaa sheegay in deegaanka Shaam oo dhaca galbeedka inta u dhaxaysa Bariire iyo Awdhiigle howlgalka ayaa ka wadaan isla markaana ay kula wareegeen deegaano hor leh ayaga oo dilay tiro badan oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-shabaab. Taliyaha ciidamada dhulka ee Jenaraal Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in howlgalka looga gol leeyahay sidii Al-shabaab looga saari lahaa deegaanadaasi oo ay weli kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Aadan Ibraahim Cali Najax ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in marnaba ciidamada dowladda ay joojin doonin howlgalka ilaa inta ay ka dhameynayaan gobolada Shabeellada Hoose ka saarayaan Al-shabaab. Kursi ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa ku loolamaya dalalka kala ah Kenya iyo Djibouti oo bariga qaaradda Afrika. Kursigan oo horyaala dalalka Afrika ayaa cidda kaliya ee hadda ku tartamaysa waxa ay tahay Djibouti iyo dalka Kenya, balse labada dal muxuu midba midka kale ka codsanayaa inuusan tanaasul u muujiyo walow aysan jirin jawaabo nooca ah oo weli soo baxay. Djibouti iyo Kenya ayaa codsiga ku aadan halista kursiga waxay u gudbiyeen qaramada midoobay iyo ururka midowda Afrika, waxaana cidda ku matalaysa Afrika kursigani la filayaa inuu bishan ay go'aamiyaan midowda Afrika. Kenya oo joojinaysa cidda ay ugu soo muuqan lahayd goobaha masiiriga ah ee la sheegay inay jiraan waxyaabaha gaarka ah oo ku xiriiriya sida inay guul ugu dhaweyn karta dacwada ka taala maxkamadda caalamiga ee la xiriirta biyaha ay Kenya sheeganayso xeebaha Soomaaliya.